waxaa maanta kormeer howleed si wada jira ku tegay garoonka diyaaradaha ee magaalada Boorama maamulka gobolka kan degmada oo ay weeliyaan xubno ka socda bulshada rayidka halkaas oo ay ka socdeen howlo shaqo oo dhirta ka baxday garoonka lagaga jirayay ugu horeyn ka hadlay isku duwaa wasaaradda duulista iyo hawada ee gobolka Awdal waxaana uu mahadnaqay qaar ka mid ah haweenweynaha qurba joogta ee gobolka Awdal gaar ahaan jaaliyada dalka Canada kuwaasi oo dhawaan deeq lacag soo gaarsiiyay mas'uuliyiinta degmada Boorama si wax looga qabto dhisitaanka garoonka diyaaradaha ee aadan isaaqe magaalada Boorama waxaana uu yiri mar warimahaasi ka hadlayay sidoo kale waxa ayaguna madasha ka hadlay xubno ka socday bulshada rayidka kuwaasi oo carabka ku adkeeyay sidii looga qayb qaadan lahaa dhisitaanka garoonka kuwaasi oo hoosta ka xariiqay in ay muhiim tahay in dhan looga soo wada jeesto soo nooleynta garoonka diyaaradaha ee aadan isaaq waxaana ka mid ah hadalladoodii geesta kale waxa ayaguna dhankooda ka hadlay gudoomiyaha degmada Boorama mudane Saleebaan Xasan Xaddi gudoomiyaha gobolka Awdal mudane Cabdo Axmed Aayo waxaana si wada jiro ay uga warbixiyeen dadaalka ay xukuumaddu ugu jirto sidii loo dhisi lahaa garoonkani
isku soo wada duuba waxaa waqtiyadii ugu dambeeyay ka socday gudaha magaalada Boorama dadaalka loogu jiro sidii dib loogu soo dhisi lahaa garoonka diyaaradaha ee galbeedka magaalada Boorama ee Aadan Isaaq Cabdulcasiis Cabdullaahi shabakada caalamiga ee Boorama News magaalada Boorama